soomaalida waa dad aqli hoose leh doqomo ah waxay ka imaadeen waddan musuq maasuqa dal xun oo ka mid a waddamada adduunka ugu xun waxay yimaadeen waddankeenna si buuxda ayayna inoo dhacaan hadalladan guracan cunsurnimada leh waxaa maanta yidhi madaxweyne trump maanta taariikhdu ahayd bishii 3/26 wuxuu lahaa shir uu la hadlayay wasiirada maraykan shirkan ayuu ku dhex yiri asagoo dadka maraykan la hadlaayo iyo kabinetkiisi la hadlaayo ayuu madaxweyne trump weerarkan ummadda soomaaliyeed ku qaaday trump mar walba bil walba maalin walba habeen walba ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeedba aflagaada ayuu u geystaa mar walba wuu caayaa shacabweynaha maraykan ayuu rabaa inuu ku diro soomaalida hadalladiisa waa hadallo cunsuriniyeed hadallo kicin dadweyne dadka maraykan ula hadlayaa mar walba fariin u dirayaa wuxuu leeyahay dalkiina waxaa dhacaya soomaalida boobeena caddeyn lahayn ayuu mar walba wuxuu ku celiyaa 18 bilyan oo dollar ayaa soomaalida minnesota dhacday waa waraan jirin oo caddeyn lahayn laakiin waxaa xaqiiqa wuxuu trump waxaan u leeyahay waxaa waaye laba arrin epstein file oo dadka maraykan ka wareejiyo iyo hadda dagaalka iiraan iyo maraykan iyo israel u dhexeeya maalintii maraykan 1 bilyan oo dollar uga baxo dagaalka 1 bil ayuu hadda socdaa iiraanna weli waa isdhiibi leedahay gantaaladooda ayay gemaysaa way dagaalamaysaa dhaqaalihii shidaalkii caalamkana 20% meeshay marayeen Strait of Hormuz cunahay qabatay maxaa dhacay marka shidaalkii caalamkana qaaliyoobay sicir barra ayaa dhacay cuntadii grocery store-ka aanu gadanaynay iyo shidaalkii ayaa qaaliyoobay shacabweynihii maraykan ayaa hadda maalmahan kacay xataa taageerayaasha trump ee loo yaqaano maaga marka fox news oo idaacad conservative ayaa waxay qaaday survey dadka ka dhex qaaday boqolkiiba 59 dadka maraykan waxay dhaheen qaabka madaxweyne trump uu xilka u hayo madaxtinimo kamaana helin boqolkiiba 41 waxay dhaheen waanu taageersanahay qaabka madaxweyne trump wax uu hogaaminayo marka haddaad fiirisid majority-ga waxaa waaye boqolkiiba 59 dadka maraykan waxay leeyihiin trump waddanka meel xun ayuu u wadaa disapprove ayaanu ku samayno waanu diidanahay xilkiisa waa tiro aad iyo aad u badan dadkan waa dadkii badankood doortay maraykan madaxweyne trump doortay waxay ka filayeen madaxweyne trump maciishada inuu raqiisanayo nolosha raqiisanayo cuntada raqiisanayo grocery store-ka raqiisanayo shidaalka raqiisanayo maraykanna uusan dagaal aadeen trumpna uu ku celceliyey weligii ma dagaalamayo waxaa ahay madaxweyne piisa madaxweyne nabdoon balse hadda waxaa cad benjamin netanyahu israel inay ku kalifeen madaxweyne trump inuu dagaal aado si uu sheekada epstein file gabdhihii uu kursaday farxumeyntuu sameeyey oo dadka maraykanka uga jeediyo sababtaas laftigeeda ayaa waxay keentay mar walba markay madaxweyne trump inuu ku soo celiyo soomaalida waa dad xun waa tuugo maantana wuxuu ku daray waa wadoqomaba aqli ma laha waa xoolo ayuu nagu tilmaamay gunaanadkii dadka maraykan waxaa loo baahan yahay inay foojignaadaan qaadada soomaalida maraykan inay foojignaadaan waayo taageerayaasha trump ee maaga trump hadalladiisa qaar badan ayaa aamay marka waa in la isdifaacaa wallahi annaga waxaan nahay shacab soomaali maraykana cashuur bixiyaala waddankaa jecel horumarkiisana ka qayb qaato warka trump uu sheegayana waa been war guracan trump wuxuu ku fashilmay dagaalka iiraan wuxuu ku fashilmay epstein files caradii iyo cuqdadii marka ayuu wuxuu rabaa soomaalida maraykan inuu kula dhaco berbera waxaa la rabaa in laga dhiso military base ee ku leedahay israa'iil israa'iilna waxay rabtaa beeskaas inay kaga duusho xuutida yemen warbaahinta bloomberg laga leeyahay maraykan ayaa qortay shalay warkaan warbaahintu waxay sheegtay inay wareysatay saraakiil israa'iil warkaana loo xaqiijiyey already israel intelligence iyo saraakiil israa'iil ayaa booqday berbera tiri warbaahintan oo indheeyey meeshii rabay inay ka dhistaan israa'iil military haddii arrinkan ay dhacdo
waa arrin halis ku ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed waayo waanu ognahay xuutida Yemen gantaalada ay tuuraan Israa'iil xataa iska celin weysay Sacuudi Carabiya iska celin waayay Mareykan xataa iska celin waayay haddii marka military base ee Israa'iil ka dhistaan Berbera kaga duulaan xuutida Yemen ayagana the retaliation ayay sameynayaan xuutida waxay gubayaan Berbera Soomaaliya waqooyiga Hargeysa iyo meelo fara badan xukuumadda madaxweyne Cirro uu hogaamiyo dadkoodii ayay gateen aqli maaha midaan in Israa'iil loo ogolaado military base ee kaga duulaan xuutida Yemen waxaa midaas dheer Iiraan sidoo kale gantaalo ayay soo tuuri doontaa waxaana duqeyn doontaa Berbera Soomaaliya waayo haddaba waa aragteen waxay duqeynaysaa Iiraan wadamada bariga dhexdhan Carabta ilaa Israa'iil meel walba asad Mareykan iyo Israa'iil yaa la duqeynaysaa marka haddii Israa'iil military base ka dhigtay Berbera sidoo kale Iiraan dagaalka soo galaysaa dagaalkii bariga dhexe ka socday oo aan u jeedno hadartaan bariga dhexe inuu holcayo gubanayo iyo maamulka gooni istaagga uu hogaaminayo Cirre wuxuu u soo raray Soomaaliya dadkiisii ayuu rabaa inuu gubo dab ayuu rabaa inuu ku shido caqli maaha midaan in loo ogolaado Israa'iil inay military base ka samaysato xilligan qaraar aan ku jirno Berbera Soomaaliya ganaskii dowladda Soomaaliya waa inay midaan soo fargashataa waa inay ka hor istaagtaa military base kan ee Israa'iil ka dhisanaysa Berbera waa in caalamka ku dacwaysaa waa inay la xiriirtaa loomana ogola haddii international community iyo saaxiibada isticmaasho waxaa laga yaabaa inay ka hor tagto inkastoo Israa'iil qofna ay dhegeysanin keligeed iyo amartaageedan ay ku socoto laakiin Cirre iyo madaxda kale Soomaaliland warrag aqli leh dad aqli leh oo damiir leh idinkuma jira miya dadkiina iyo dalkiina maxaad u gubaysaan aw culimadiina aqoon-yahanadiina uqaashiina Israa'iil haddaad keenteen maanta geyiga Soomaaliya dee wax walba ha laga fisho dhibkii bariga dhexe ka jiray ayaa Soomaaliya loo soo rarayaa dabkaana geyi walbo Soomaaliya waa gaaraya ee ka hor ha laga hortago ha laga kansalo military base kan Cirre waa hadduu aqli leeyahay xukuumadda hadday aqli leeyihiin ha ka hortagaan hana joojiyaan military base ka haddii kale dee gantaalada xuutida iyo gantaalada Iiraan cid qaban karta ma lahan dad badan oo Soomaali ah ku dhimanayo kuna barakacayo haddii military base kan Israa'iil ka dhisto Berbera waxaan rajaynayaa aqliga iyo maskaxda inay dadkan Soomaaliland u shaqeyso kuwaa shay ictiraaf waxaan rajaynayaa inay joojiyaan military base kan laga dhisayo Berbera insha Allah maxaan farax ama amaan Allah